gabadhaas aad iyo aad bay u dhiig baxday hooyadeed hadhow markay timid ayay aragtay gabadhii oo dhiig baxday oo aad iyo aad u dhiig baxdo halkan kala taalla hooyay waxay tiri anigoo miyir la'aba waxa kan la yiraahdaa ninkan saan ii galay uu ceejiyay markaan miyir beeyana saas uu ii galay ninkaas waa waqti hameennimo uu qabsaday gabadhaas waqtiga hameennimada markuu qabsaday gabadhaas hooyadeed waxay ku maqnayd oo aad ari baayo doonatay markay baayo doonatay hooyadeed ka maqan buu hameennimo u yimid waa aniga oo Faarax Sahal Maxamed Nuura oo ka hadlaya kiis ka dhacay magaalada Afridood oo ka tirsan degmada Gaalkacyo kiiskaas oo aniga igu dhacay aniga oo Faarax Sahal ayaan ka hadlayaa kiiskaas waxa weeye gabar aan dhalay ayaa waxa qabsaday gabadhii markii ninku qabsaday gabadhaas ninkaas waa waqti hameennimo uu qabsaday gabadhaas waqtiga hameennimada markuu qabsaday gabadhaas hooyadeed waxay ku maqnayd oo aad ari baayo doonatay markay baayo doonatay hooyadeed ka maqan buu hameennimo u yimid gabadhaas ninkaasu busto ay huwaneyd buu afka ka saaray wuuna ceejiyay gabadhaas markay sirdhay oo nafka dhac gaadhayna wuu ka fuqay iyadoo miyir la'ana siduu doonu ka yeelay riximka makaankii ay ahaydna markii xaaladii midha hagaag waayaan buu riximka inta qaatay wuxuu ka geliyey midorooyinka ka geliyey dhinaca kale u falo gabadhaas aad iyo aad bay u dhiig baxday hooyadeed hadhow markay timid ayay aragtay gabadhii oo dhiig baxday oo aad iyo aad u dhiig baxdo halkan kala taalla hooyay waxay tiri anigoo miyir la'aba waxa kan la yiraahdaa ninkan saan ii galay uu ceejiyay markaan miyir beeyana saas uu ii galay hooyay saasaa la ii galay bay tiri ninkii waa la ceyrsaday oo rag baa ceyrsaday waddanka joogay ninkaasu meesha uu gabadha ku qabsanaya waa meel Afridood meel yar u dhow oo hadda ceelka beeraad ka xigta dhinacan cagaaran xaggeeda waxa kan la yiraahdaa ninkaas markuu sidaa yeelay waa ceyrsanay markii raacda goobka ahaa ninkii waxay u tageen ariga uu raaci jiray ninkaas oo ariga shaqaalaha ninkii uu ahaa bay u tageen ninkii shaqaalaha wuxuu ku yiri aniga kiis baan galay waan la daba joogaa baqaan haya waxaad yeeshaan iyo xoolaha waa kuwaas saas markuu uga tagay ninkaas oo kiiskiisa ugu cadeeyay wuu tagay ninkaasu wuxuu u tagay bacaadweyn uu cararka wuxuu ku gaaray meel bacaadweyn ka jira dhinacaas waqooyiga beera ah buu galay oo nin ku ogaa cidahooda ku ogaa ninkii uu tagay inuu kiiskaasaan galay in la daba joogan waa maanaya isla markiiba ciidankii iyo raggii daba joogay baa soo qabtay ninkaas rag kontumeeyaha ahaayeen magaalada cagaaran saldhigga cagaaran bay ku soo xireen saldhigga cagaaran uu ka xirtay intii raggii goobahayay oo qabtay oo kontonka nin ahaan hortiisu ka qirtay inuu gabadha qabsaday cagaaran saldhigga cagaaran uu ka qirtay inuu gabadha qabsaday sidaa intaa ka bacdi ninkii waxaan keenay saldhigga halkaan Gaalkacyaan keenay gabadhii waa dhiig baxday adigu waa la gaaro ilaahay markii gabadhii xogaa way noo roonaatay gabadhii way roon tahay markii sidaas hawshaas u dhacday gabadhii dambe baaristii hawshii waa la galay hawsheedu waa la galay alxaasil alcamam waxay ku soo hoosantay maganaysaa maxkamadda hawshaas ku soo biyo shubatay maxkamaddii markaan nimid waxay dhaheen saddex kiis baa in ka horeysa saddexdaa kiis oo in ka horeysa markay dhacdo oo dhammaato yaan hawshiina gelaynaa bay dhaheen markaan saddexdaa kiis dhammaatan annaga aynu soo wacayna hawlihiina qabsada meesha aad u doontaan kala aad annaga lambarayna hayna anteena meel lahayd ku yaal ka waay sidii baan yeelay magaalada Gaalkacyoodba kamaana bixin iyadoo sidaas ah baa anagoo magaalada joogna Gaalkacyood baan waxaan maqalay maxkamadda darajada koowaad oo inay gashay hawshii hal garab u gashay gabar noo haysay bay u yeerteen gabadhii iyo ninkii yaa loo tagay meesha ku xiraa saldhigga ku xiran jeelka weyn ku xiran ninkii markay u tageen bay waxay dhaheen gabadhan ma qabsatay ma dhaaranaysaa ma qabsan buu yiri ma dhaaranaysaa waa dhaaranaya waa hawl la isla ogaa oo labada garabkayga anagu waa ka maqannahay waa hal garab waxa loo galayaa hawshaas waa hal garab waxa loo galayaa garabkayga waa maqnaa dhibanaha ahaa oo cid naga joogta ama magaalada aan joogno gudaheeda hawshaas oo maxkamadda darajada koowaad aad iyo aad kiis nooga gashay ayaan ka hadlayaa maxkamadda darajada koowaad annagu waxaan rabnay markaan soo wacaynaa waxay tiri magaalada aan joognay namaan ay soo wicin
وحارين أن لا يلتني مجران إنتاس أيضو بان مسنا وحنا اللي عفان قاد هدي هوشة إنه كوك برناس إن قادنين أو نكاس الأربعة لما كتاب بلا مساس دب كلها بعدين دب ملا نكاس نكي سدا يالي وقبل أستوقف فيها قصدي وإنتاس مرخاتي سومري وإنتاس هول سومري وإنتاس مرخاتي سعدي هاي مرخاتي مقالة نوتشو أي واحد دب ملا waxa meesha fadhiyana waa hal garab baa fadhiya anagu arintaas waa diiday racfaanka waa diiday waxaan u diiday maadaama aan loo yeerin anagana aan magaranaysaa hadda nolol baahnaynba racfaankaas anigu waa diiday haddana waxa kan la yiraahdo ma yeelayo racfaanka ma yeelayo waana hawsheedina si halkaas ku xiranta racfaankaas inaan yeelin maxkamadda darajada koowaad ay ugu xukuntay ma yeelayo arintaas dowladda waxaan baa u dirayaa iyo dowladda iyo hasa qaybta iyo maxkamadda waxaan u dirayaa hawshaas in la ka galay annaka ma garanaysaa dulmina la ka galay yaan u dirayaa waxaan u dirayaa gudoomiyaha degmada gobolka waxaan u dirayaa arrinta hawsha dambi in la ka galay annagana la ka galay kiis weyn la ka galay ka qaybta waxaan u dirayaa kiis weyn la ka galay كل مدحها الدولة iyo كل مقنايساي كل انت وحي xil hayo waxaan u dirayaa in dambi weyn ka galayo dambigaas dambi weyn oo ka galay yahay hawshaasna maxkamadda koowaad hadaan la kaga soo bilaabin hawsheeda anigu ma galay mana xafaan qaadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxkamadda madaxweynaha dowladda Puntland waxaan u dirayaa baaq baan u dirayaa asagana madaxweyne waa ku salaamaya 14 boqolka mudane madaxweyne arrintaas khalad inay ugu dhacday baan ku sheegay assalaamu calaykum